السلام الله عليكم سو dhawaada saaxiibadeena wanaagsan barnaamijkan maanta inoo wada waxa uu yahay qofka iska leh dhiga ama dabeecadaha qofka dhiga waxaynu ka soo qaadan doonaa qayb wanaagsan oo uu leeyahay qofkaasi iyo qayb xun oo uu leeyahay si aad si sax ah ugu ogaato in aad leedahay dhigan dabeecadaada xun iyo dabeecadaada wanaagsanna aad si fiican u kala garato haddii aynu ka hormarno dabeecadaha xun qofkaasi leeyahay dabeecad xun oo aan gardaro badnayn qofkani inuu ku gardareysto ma laga yaabo balse dabeecadiisu aad bay u khaldan tahay ama u khariban tahay waxaana laga yaabaa haddii aad qalad yar kula dul dhacdo in aan u adkaysan oo uu ku dhibaateeyo qodobka labaad waa qof jecel kelinimada badanaa arki maysid qofkan oo dad badan ku dhex jira ama dad badan la socda way yar tahay inaad aragto waa qof kelinimada jecel qodobka saddexaad waa qof kuma daaro ha idaarina qofkani si wanaagsan ayuu kula socon doonaa hana khiyaamin haddii aad khiyaamo ku samayso waxa laga yaabaa noloshaada inaad ka sheekayn doonto tii uu kugu dhigo qodobka saddexaad waa qof aan sheekayaqaan ahayn qofkan lagama yaabo meel lagu sheekaynayo inuu ka sheekeeyo isagu waa mar walba dhagaystaha ama mar walbaaba waxa uu ka fikiraa qofkan bilow haddii aad waxaan ula tagto ay kugu qoslaan ama kula yaabaan lagamana yaabo inuu sheekadiisaas soo bandhigo qodobka afaraad waa qof murugo badan maxaynu ka wadnaa tan badanaa qofku marka uu keligii yahay wax badan ayuu isweydiiyaa taasi ayaana keenaysa inuu qofkani aad u yar murugo qodobka shanaad waa qof inta badan ka warwara shaqada u taala qofkani lagama yaabo isagoo shaqo u taalo inuu shaqo kale tago ama wax kale ku mashquulo sababtoo ah intuu taa ka walwalayo ayaa waxa laga yaabaa waqti badan inay ku qaadato qodobka lixaad waa qof haddii uu bun cabo ama uu taad cuno ama uu daroogis waxyaabahaas isticmaalo ay hurdadu aad uga guurto ama hurdadu ku yaraato lagamana yaabo qofkaasi marka uu daroogiska isticmaalo in uu hore u seexdo haddii aad leedahay dabeecadahaasi negatifka ah ama aad leedahay shakhsiyadda dhiga bal dabeecadahaaga wanaagsanna dhageyso qodobka koobaad waa qof khajilaad badan oo xishood badan maxaynu ka wadnaa qofka khajilaada badan leh badanaa uu xishood badan yahay xishoodkuna waa mid ka mid ah waxyaabaha qofka bini'aadamkii lagu qiimeeyo ama waxyaabaha ugu wanaagsan qof bini'aadam yeesho qodobka labaad waa qof aan hunguri badnayn maxaynu ka wadnaa qofkani lagama yaabo inuu meelo badan ama aad aragto isagoo cafeteria ama hoteelo badan wax ka cuna waxa laga yaabaa saddexdiisa waqti ee familka ama xaafadda uu ku kooban yahay inuu ku deysto qodobka saddexaad waa qof wax kasta u nidaamsan yihiin sida qolkiisa iyo shaqadiisa iyo waxyaabaha la mid ah badanaa arki maysid qofkan oo xafiiskiisa iyo waxyaabahaas isdhex daadisan yihiin ama khaladaad ku jiro lagama yaabo inaad aragto qodobka afraad waa qof nabadgelyo jecel qofkani badanaa nabadgelyada ayuu ka shaqeeyaa waa qof wanaagga inta badan ka rajeeya dadka bini'aadamka balse isaga la khiyaamayn karo ama ay fududahay in la khiyaameeyo qodobka shanaad waa dad jecel jawiga bilaa buuqa qofkani waxa uu jecel yahay meel keligiiya durdurmarayaan waxyaabo natural oo indhaha u roon ama moogtaadana indhaha u doogsanay haddii uu keligii helo lagama yaabo in uu tago wax kale ama wax inay ka dhiman yihiinba ma moodo qodobka lixaad waa dad jecel tiifiyada moobeelada iyo waxyaabo la mid ah marka ay ka socoto madadaalada iyo waxyaabo la mid ah badanaa waxa uu jecel yahay waxyaabaha qosol-qosolka ama moogtaan comedy-ga qodobka toddobaad waa dad jecel wax akhriska waxbarashadana aad bay ugu fiican yihiin waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu ku anfacay intaynu ku kulmi doono barnaamijkan lida waxaan igaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum